saaki meesha aan joogno waad aragtaan waa buurtina sahablood ayaantaana iyada talis noo ahayd waxaanuna ka wadnaa shaqo shaqada ka wadnana waxay ka mid tahay xil waajibaadkii shaqo ee degmadu ugu xil saareyd dadweynaha ku nool caasimadda iyo guud ahaan Soomaaliya waa Tombaleen waxaanu diyaarinaynaa maadaama magaaladii haatan ay soo dhisantay waxaanu diyaarinaynaa magaalo cusub iyo qorshihii ay ku degi lahayd Tombaleenkeedii iyo wadooyinkii iyo dadku sidii ay u degi lahaayeen magaaladuna u fidi lahayd shaqadeedii baan ku jirnay muddo hadda 3 asbuuc dhowna waa wadnaa ilaa idankiisna waxaanu jecelnahay inaanu sii wadno ilaa iyo inta aanu ka gaarayno barnaamijka siyaasadeed ee nooga qorsheysan haddaanu nahay dadka deegaanka degmada waad aragtaan waxaa halkan ka socda wadooyinkani kuwa magaalada dhisantay ay lahayd maaha waa qorshayaal ka duwan waad aragtaan wadooyinkeedu waxay ka kooban yihiin 4 qaybood bay u kooban yihiin qaybta wadooyinka waaweyn waa 30 waa 20 waa 15 iyo 12 oo connectionka meelaha xaafadaha wadooyinka aan ugu talagalnay ay ka noqonayaan laakiin wadooyinka waaweyn waa 30 waa 20 waa 15 oo aad ugu yar magaalada dhisatay ee hadeer caasimadda marka waxaanu diyaarinaynaa magaalo cusub ee ay ku fido magaalada Garowe oo Tombaleenkeedii leh oo adeegyadeeda bulshada leh oo facility-geedii leh ayaanu qorsheynaynaa inay noqoto halkan oo diyaarinaynaa ilaa iyo 10 sano oo soo socda waxa loo ogyahay dhulka dad inay qabsadeen oo dad leeyihiin dhulkiyadiisa sidaa darteed qorshahan aad sheegayso magaalo cusub oo leh adeegyada caafimaadka goobiga amniga ma idinka jab kala soo baxay mise dadka dhulka leh baa qayb ka qaadanaya arrintaa maya qorshaha iyaga siyaasadeed ee degmadu horta dhul waxaa wakiilka ah dawladda dadku waxay u degi karaan obasiib mar hadday obasiiba degaaniin obasiibada in loo sharciyeeyo qaybtii facility-ga adeegga bulshadana laga gooyo waa shuruucdayada iyo sharciyada u dhisan degmada iyo midda dawladda anagoo fulinayna procedure-ka dawladnimo anagoo eegayna xukunka dhulka laftigiisa anagoo aan xukunno ayaa waxaa lagu qasban yahay cid walba ee qabsatay dhulka kan inaanu ka goyno 30% loogu talagalay adeegga bulshada in lagu sameeyo hadday tahay saldhigyadii post health-yadii ay tahay ganacsigii ay noqoto suuqii ganacsiga ay noqoto saldhigyadii ilaa waxa weeyaan magaalo lama qorsheeyo haddaysan adeeg bulsho lahayn magaalada waxay wax ku tahay inay hesho service-ka adeegga bulshada waxaana haya dadka kan dhulka iyagu ma aanu cabirin ogolaansho ma haystaan cid walba waa ku habsatay oo basiiba ay qabsatay waxaana lagu qasbay oo basiiba ay qabsatay inaan ka goyno dantii caamiyadaheed ummadda ay lahayd waaye aad baa maadsantahay xogayaha dawladda hoose Garowe ayuu ahaa bal iminkana waxaan mikrofoonka la dhex qaadi doonaa qaar ka mid ah dadka halkan ku sugan oo dawladda hoose ka gacan siinaya sidii markaasi Tombaleenka iyo qorshaha ay wado uu u hirgeli lahaa ama u fuli lahaa aad baa maadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم waxaan joogaa magaalada Garowe kana mid ah dalka Soomaaliya gobolka Nugaal caasimadda Puntland waxaan ka mid ahay dadka u shaqeynaya iska wax u qabso dalka u shaqeynaya ummadda u shaqeynaya waxa laga shaqeynayaa qurxinta magaalada Garowe waxa la hagaajinayaa dhulkii mustaqbalka deegaanka ahaa oo wadooyinkii iyo laga hagaajinayo iyo dhismihii kale iyo qurxintii dhirtii iyo dhirayntii waxaan u shaqeynayaa waa dalkaygii waana ku faraxsanahay waana ku qanacsanahay aniga iyo dadka kale ila midka oo xoogooda ku shaqeynaya oo naftooda u shaqeynaya dhulkooda u shaqeynaya waxa aan sida markaa darteed la hadlayaa dadka maqan kuwa jooga dalka kuwa geela la jooga iyo miyiga jooga kuwa magaalada jooga baararka farfadhiya iyo kuwa maqan oo dhulka shishe jira qaaradaha inaga maqan ee waddanka dacaladiisa sida America, Australia, Aasiya meel kasta dal islaam iyo mid gaalaba kuwa jooga kuwa maqan waxaan leeyahay waxaad aragtay dhul qurxiyay ubax leh dhir lagu beeray wanaagsan dad baa hagaagsan idinka idin la mid ah
waxaan doonayaa sida dadkaasu dhulkooda u quruxsadeen inaad idina dhulkiina u quruxsadaan oo aad harsataan dhir aad beerateen dhir dad kala beeray dhaxan idinka celin mayso harna idin noqon mayso harku waxa weeye lama huraan waa cawska jilaal nin walba dhulkaaga inaad timaadid oo qurxisid Soomaaliya waa isku mid afarteeda koone meesha ka timaadid hal geed haddaad beertid waxa uu ku anfacayaa ilaa wiilkaaga wiilkiis dhulka aad joogtaan nimanka hadda jooga ma ay beerin awowayaashood baa u sii beeray oo u sii diyaariyey idinkuna waxa la rabaa inaad dhaxal uga tagtaan dhulkiina kan geela la jooga waxaan leeyahay oo miyiga ku nool warniyo dhirtaa jaraysa jooji oo xaabadaa guraysa jooji oo xaalufka aad samaynaysa jooji oo dhirtu waxay tahay waa taqaana oo geedku hadduu qalalo markasta waxaad oranaysaa abaar maan haysa abaartu intay sameeyaan dooga ay tahay dhirta beer ha jarin dhir dambe kan geela la jooga saasaan leeyahay kan magaalada jooga oo baararka fadhiya oo kubadda ciyaaraya oo haddii ay ku rayay fadhi ku dura ka sheekeynaya waxa kaaga fiican ninka soo shaqeynaya oo dhulka u shaqeynaya inaad la shaqeysid ciduu doona ha ahaado Soomaaliya meel kastay tahay ninkii shaqeynaya inaad la shaqeysid wuxuuna qabatay isku dayna wax qabatay waa qaban kartaa hays oran wax ma qaban kartid wax badan baa qaban kartaa wax badan cirka kan gaaray waa dhaafi kartaa kan cirka gaaray oo dayuurada ka haystay oo dayax gacmeedka samaystay waa dhaafi kartaa hays oran wax ma qaban kartid baar fadhiso sheekee xoogaaga aqligaaga waxaaga isu geyso dadka hadda aan ka mid ahay waxaan u shaqeynaynaa iskaa wax u qabso cid aan qarash ka rabno ma jirto cid aan lacag ka doonaynaa ma jirto cid aan ugu faanaynaa ma jirto waxaanu hagaagsanaynaa dhulkayaga hooyo iyo aabe oo Ilaahay noo dhaliyay mustaqbalka wixii Ilaahay noo kasbo aanu qaban karno inaanu qabanaano raalli kana marka waxa idin leeyahay mid maqan iyo mid joogaba wax waa qabsan karnaa aan dhulkeenu qurxisano wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Huruus Cabdiraxmaan Aadan waxaan ka mid ahay bulshada gobolka Nugaal ku nool isla markaana had iyo jeer dawladda hoose ee degmada Garowe jecel in ay la socodsiiso maamuuska iyo habka systemka town planning magaalada dadka bulshada dhulkaas wax kulana waan ka mid ahay sidaa daraadeed maadaama dhulku ummadda ay iska qabsatay hadda wuxuu u baahan yahay in town planning loo sameeyo dhulka nin walba dhul buu iska xirmaysta kuna boqol hadda kadib dawladda hoose waxay xaq u leedahay dhulka qofka inta uu qaadi karo canshuuran karo in la siiyo inta dawladda loo wareegto anigu shacabku waxaan leeyahay haddayna canshuuran karayn dhulka ballaaran qofka canshuuran karo wax ku qabsan karo war waynu qabannay ummaddaynu wax ka siino dadkeena magaalada ku soo dhaweyno magaaladu way ballaaratay hadda waxay maraysaa buuriina saablood magaaladu soo gashay xaaji cabdicatan riigiisii bay timi dhulkii oo dhan waa la soo dhaafay town planning baa loo samaynayaa dawladda hoose shaqada fiican oo town planning halka ay ka wadana aad baan uga mahad celinayaa waxa kale su'aalana diyaar baan weydiinaysaa aad baa u mahadsantahay